بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين أمومنا يا مركلة دمانتين ولا لها آدي هذا إدين سلامة يا ميل الله ميش أجوكتان با دمانتين بآدي هذا إدين سلامة يا إلهي سبحانه وتعالى أنا ميل الله ميش أجوكتان بخير يا برواقو يا نبض يا عافمات يا ويل يا عانو يا قبر يا عانو الله إذن كسيه ما شاء الله تبارك الله. walaalayaal caawa haddii ilaahay subxaana watacaala uu ka raali noqdo waxaa idinla wadaagayaa detaxankii aan horey cajalado hore waxyar aan ooga soo hadlay biidnillah. allahuma salli calaa maxamed. haddaba ashyaada caawa aan idinla wadaagaya caam waaye maasha allah tabaaraka allah. aad iyo aad baa u taqaanaan faa'iidooyinkoodana aad iyo aaday u badan yihiin maasha allah. waa waxyar oo aad ka samaysanaysid detaxin aad ka samaysanaysid oo aad korkaaga aad ku nadiifinayso maasha allah. gudahaaga markaa cabtid nadiifinaya beerkaaga keliyahaaga dhiigaaga korna kuugu qaadayo maasha allah tabaaraka allah. immune systemkaaga kor kuugu qaadayo ayaa caawa idinla wadaagaya maasha allah. wax kale ma aha, waa koob ah strawberry ah, koob blueberry ah, koob raspberry ah ما شاء الله تبارك الله. وأفرت بيري ما شاء الله all بيري بلو بريجا أفرت هذا متقنع من وحيراك سوق عدنا يسا بإذن الله باري سي عادي يا وحا أوشي ذا نساء بيعد يا أوشي ذا نساء ما شاء الله. سيدا بلدرك أكو أركتان با هسكا قدرين مركا أوربتو ديتاكسين أهان مركا أوربتو هسكا قدرين وحمعان هسكا قدرين سيدا ملب أما سكر أما محل لها ما شاء الله تبارك الله وحيابها وحلقو معانيو waxaana qaadanaysaa jab yar oo liin dhanaan ahna ku dar maasha allah. marka waxaa qaadanaysaa subaxa alasayda hore waaga markuu kuu bariyo ayaa qaadanaysaa koobkaas maasha allah tabaaraka allah. 7 beri wad marka waa kala bedeli doonaa iyadoo noocyo fara badan noo imaanaysa. marka every 7 days inaa mataqaanaa shay cusub korkaaga gelisa aad iyo aad muhiim u ah. haddaba risanka aan usoo xushay maxay tahay ashiyaadan maasha allah tabaaraka allah. exactly ashyaa aan aniga isku keenay oo aan maskaxdeyda ka keenay ma aha, buug jira ayaan kasoo qaatay maasha allah. isku darka beerigaas aragtaan meesha ku aragtaan blueberryga raspberryga maasha allah tabaaraka allah. afartoodaba markaa isku darsato maasha allah waxaa ka helaysaa vitamins fara badan aa ka helaysaa maasha allah. kulligeen waa wada ognahay inay vitamins mataqaana ay ku jirto, laakiin vitaminada aa ka helaysa ayaa waxay tahay mid walba wuxuu keeni karayaa vitamin K. marka ujeedada laga leeyahay waxay tahay in different sources same vitamin aa ka hesho ayaa markaas waxay noqonaysaa powerful ba u noqonaysaa vitaminka aa ka helaysid. saasoo kale waxaa ka helaysaa vitamin C, vitamin B6, B9, vitamin E intaba waa ka helaysaa. waxaa ka helaysaa oo kaleeto potassium, iron, copper, magnesium ayaa ka helaysaa. marka mineralskaas iyo vitaminskaas ka kala imaaday dhirtaas kala duwan ka kala imaaday ayaa marka ay isqabsadaan waxay sameynayaan in awood fara badan ay sameynayaan. waxyaabaha marka ay jirkaaga kusoo saacidinayaan waxaa kamid ah number 1 in ay mataqaanaa dhiigaaga ay safeeyaan oo liverkaaga ay safeeyaan, beerkaaga inay safeeyaan oo ay ka saaraan waxyaabaha qashinka oo detoxin oo ku noqoto. number 2 skinkaaga inuu dhalaaliyo oo skinka uu kasoo bixiyo vitamin E iyo vitamin K-ga. repair of skin waa inay mataqaanaa skinkaaga maqaarkaaga inay dhalaaliyaan oo nadiifiyaan oo waxyaabaha maqaarka replacement ay ku sameeyaan maqaar cusub uu jirkaaga mataqaanaa uu soo galo maasha allah tabaaraka allah. waa faa'iidada labaad ee ku jirto. faa'iidada saddexaad ee ku jirto maasha allah tabaaraka allah waxay sameynayaan jirkaaga markuu immune systemkiisa uu haayahay haddii ay wax ku saraan iyo haddii ay mataqaanaa wax ku jaraan iyo dhaqso qofka inuusan dhiig bixin oo isla markii mataqaanaa qofka dhiigiisa uu sameeyo xinjiro inuu sameeyo oo dhiigii mataqaanaa meeshii qofka jarmatay ay soo xirmato ama meeshii boog ku noqoto ay dhaqso bogsato maasha allah tabaaraka allah. oo healingkaas korka guud ee mataqaanaa qayb weyn ay ka qaataan. markay qofka vitaminada noocaana ay ku yar yihiin waxaa laga yaabaa meel hadday dilaacdo inaysan meesha dilaacdo aysan mataqaanaa aysan dhaqso bogsanin. haddii mataqaanaa hargab oo xanuuno magaalada soo galo inuu qofka mataqaanaa dhaqso xanuunadii iyo wixii inuu qabto, inuu qofkii ula imaado daal saa'id ah inuu la imaado,
inuu qofkii la imaado madax xanuun inuu la imaado waxyaabo fara badanaa qofka markay vitaminskiisa ay yaraadaan ama qofka markay jirkiisa toxinka ku jiro uu bato ku imaanaya marka si mataqaanaa ay kaaga dhacdo hawshaas oo dhan adigoo wax kaniini ah qaadanin sababtoo daawooyin ما شاء الله تبارك الله دينعا متقانا فودك elementigiisa in aan ka faa'iideysano sababtoo ah kaniiniyaasha qaar qofka marka uu qaato dhinacna way ka mataqaanaa daaweynayaan dhinacna way ka dilayaan waxa laga yaabaa kaliyihii iyo meelo fara badan inuu qofkii mataqaanaa u damage ay ka gaarsiiyaan ayaa mataqaanaa suurtagal ah ما شاء الله تبارك الله walaalahay reer Soomaaliya in aan haysano wadankeena ay ka bixi jirtay dhirtan aan hadda ka soo hadlay iyo in kale ma garan karo biidnillah baari idinka mataqaanaa ii sheegaya biidnillah laakiin waxaan diyaar idin la ahay same element waxyaabaha hadda vitaminskan iyo mineralskan laga helo alaabtan qudaar kale ama fruit kale oo laga helo ina iyagana aan idin soo diyaariyo oo mataqaanaa idinkana aad isticmaashaan ma sha Allah tabarakallah ayaan aad iyo aad aan diyaar idin la ahay dhamaantiin meel walba aad joogtaanba ilaahay subxaanahu wa ta'ala aniga idinka waxaan weydiisanaynaa caafimaad aan rabbiga samaawaadka aan ku caabudno inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nasiiyo ilaahay baa wax caafiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala baana caafimaadka ilaalin kara inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo ilaaliyo ayaan mataqaanaa aan weydiisanaynaa laakiin intii dadaal ah oo anaga aan awoodno inaan mataqaanaa aan nafteena aan la garab istaagno wax yar oo wax weyn ee ka daafacaya jira marka biidnilaahi baari in aan mataqaanaa arrintan aan xil intaan iska saarno ma sha Allah aan soo tijaabino feedbackana biidnilaahi baari walaalayaal ii soo celiya waxyaabaha aad ku garan kartaa waxaa ka mid ah marka uu jirkaaga detoxinka uu helo oo jirkaaga uu nadiif u noqdo waxaa helaysaa firfircooni saa'id ah waxaa laga yaabaa haddii ay wajiga haaro or pimples or something ah kulahayd waxyaabihii inay ka noqdaan aan suurtagal ah haa qofka qurxinta wajiga guud mataqaanaa waxyaabo badan oo qofka wajigiisa intuu mariyo ama dhalaalin kara ama qurxin kara waa jirtaa hasaba ahaatee inside out beautyga ayaa wax walba mataqaanaa ay ka muhiimsan inaa korna waxaa ka marsan kartaa aad ka marsato iska qurxiso oo iska dhalaaliso waxyaabihii kor mataqaanaa pollutionka iyo waxyaabaha mataqaanaa xagga gabdhahan hadda la hadlayay aad iska qaada ma sha Allah tabarakallah way qurux badan tahay haddana ha ahaatee inaa hoos mataqaanaa jirkaaga hoostiisa lightkaas inuu ka soo dhex baxana aad iyo aad ay mataqaanaa iyadana ay u qurux badan tahay biidnilaahi baari gabar iyo wiilba cunug iyo ruux weynba everybody caafimaadkiisa mataqaanaa muhiim waaye biidnilaahi baari marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dhigo kuwo waxyaabaha fiican choice gareysta mar walba waa walaashiin umumno oo idin leh meel alaaliya meesha aad joogtaanba ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad iyo farxad rabbi ha idinku irsaaqo walaalahay Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin jeclahay dhamaantiin kulanti dambe oo xiiso leh biidnilaahi baari ayaan kulmi doonaa biidnillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.